السلام عليكم صاحبيال isku soo noqod wanaagsan insha Allah qaybtan waa qaybtii labaad weeyaan dabcan qaybtii koobaad hadii aadan soo daawan waxaad ka soo daawan doontaa YouTube channelka gudaha u gal markaa waxaad ku dhufataa halkan ay ku qoran tahay playlist course-ka si iskugu xigaan waxaan soo geliyay playlist-ga gaar ahaan WordPress Elementor Free Course playlist-gan ayaad click siinaysaa dabcan qaybtan waxay noqon doontaa labaad qaybtii ku horeysay waxaad ka soo daawan doontaa playlist-gaas insha Allah qaybtan waxaan ku baran doonaa yani saarkayso design-kan ilaa iyo waxaan ku baran doonaa sidaan u sameeyay marka la ilaa iyo halkan ayaan ku baran doonaa ilaa iyo halkaas sidaan u sameeyay design-kan sidaan u diyaariyay ku baran doonaa ka hor dhicimayo oo ma faahfaahinayo balse waxaad ku daawan doontaa muuqaalka insha Allah muhiimadda ma aha kaliya inaad fahantid website-kan ee waxa la rabaa muhiimadda website walba marka aad aragtid inaad yani aad sheegi kartid waxyaabaha la isticmaalay inta container la isticmaalay textiga buttonska inta la isticmaalay waxyaabahaas oo dhan hadaba ila daawo qaybtan insha Allah qaybaha ka dambeeyo dhan waxaad ka daawan doontaa playlist-gan ayaa ka daawan doontaa insha Allah WordPress Elementor Free Course ku qoran tahay hadaba daawasho wacan saaxiibayaal sidoo kale saaxiibayaal haddii aad damacyada oo kale muuqaalkan hadda daawanayso sidoo kale inaad la degtid ama muuqaal kasta oo markaa yani YouTube ah ama yani Facebook ah ama Instagram iyo TikTok to bilaa looga ah dabcan kaliya waxaad samaynaysaa calaamadda share ayaa taabanaysaa muuqaalka aad daawanaysid okay inta kadib koobi baad ahanaysaa kadib waxaad booqanaysaa website-kan markaa lagu magacaabo soo degso ayaad booqanaysaa inta kadib click baa siinaysaa dabcan saa arkayso kadibna markaa muuqaalkii aad markaa linkiisa soo qaadatay halkan kadibna halkan ayaa ku baast garanaysaa oo halkan ayaad baast ama halkan ayaad baast dhaysaa intaa kadib download baa dhaysaa muuqaalkii kadibna saaxiibayaal saarkiisa muuqaalkii waa kaasa intaa kadib download baa dhaysaa ama halkan ayaad taabanaysaa kadibna download soo kale mobilkaaga kusoo degso oo markaa halka install ka soo dhaw mobilkaaga ayuu ku gelayaa soo kale computer haddaad la soo degsatana halka hoose ayuu ku gelayaa okay haddaan iska raacno okay horta marka hore waxaan samaynaynaa yani balaskan baan taabanaynaa markan waxaan soo gashanayaa laba container ayaan soo yani laba structure ayaan soo gashanayaa oo container 1 iyo container 2 ama bidix iyo midig ah inta kadib waxaan siinayaa style ayaan siinayaa oo markaa stylekiisa aan qurxinayaa saarkayso waan soo qaadanay si markaa kala loo qurxiyo kalarkaas ka dhig kalarkaas ka dhigi karaa balse anigu waxaan doonayaa kalar markaa yani aan haysto inaan ka dhigo oo markaa kalarkaas aan yani kalaradii waan soo diyaarsaday ma doonayno waqti naga lumo marka waa kaas sida awgeed marka kalarkaas ayaan ka dhiganayaa oo ku baast gareysanaya halkaas okay soo kale waxaan soo gashanayaa kalarkaas waxaa rabaa inaan sawir aan markaa yani aan ku dhex qariyo sawirkaas si markaa kalar qurux badan oo noogu noqdo marka background overlay aan tagayaa sawirka waxaas dhan waxaan soo gelin doonaa Telegramka isagu markaa zip ah ayaan soo gelin doonaa saaxiibayaal sida arkaysaan hadda markaa yani waxaan joogaa background overlay image-ka waan soo gashanayaa click baan siinayaa kadibna saa arkayso isagoo markaa zip ah ayaan waxaan soo gelin doonaa Telegramka gaar ahaan qaybta fileska insha Allah Telegramkeena haddii aadan ku jirin description ka soo gal okay saa arkayso sawirkii waa ii soo galay marka sawirka background overlay anigoo hoostiisa jooga ayaa markaa waxaan u baxayaa hoos position oo kale waxaan ka dhigayaa center waa ka dhigi karaa soo kale center light waa ka dhigi karaa soo kale waxaan leeyahay waxay ka dhigtaa top right iga dhigaan leedahay inta kadib waxaan sameeyaa halkan repeat ay ku qoran tahay sawirkii uu soo celiyay waxaa ka dhigtaa no repeat ayaan dhahayaa saa arkayso soo kale sawirkii ayaa markaa yani waxaa qariyay kalarkii marka si markaa aan u qurxiyo waxaan leeyahay yani soo jeedaya halkan one ayaan ka dhiganayaa dabcan saa arkayso hadda design-kii aad buu soo baxay balse waxaan dareemaynaa in markaa yani labadan markaa yani aad uu markaa ugu dhow yahay dhankan hoose inay yani padding markaa yani isku jiraan cirifkan uu jiro cirifkan uu jiro in markaa yani ay aad markaa yani u yar yihiin marka advanced ayaan tegaynaa si markaa yani aan size u siino kadibna padding zero aan ka dhignay dabcan saa arkayso top oo kale waxaan leenahay dhinac walba waxaa rabtaa waxaa ka dhigtaa 15 ka dhig 15 dhinac walba ka dhig baan leenahay dhankan 15 ka soo durug dhankan 15 hoos ka soo durug dhankan 15 marka waxaan leenahay top waxaa noo siisaa baan leenahay top oo kale waxaan leenahay waxaa ka soo durugtaa 200 ka soo durug baan leenahay saarkayso top wuxuu ka soo durugtaa 200 hoos oo kale waxaan leenahay waxaa ka durugtaa 100 ka durug baan leenahay saarkayso okay dabcan hadda yani kor waxaan kasoo durugnay 200 hoosna 100 geesahana 15 inta kadib waxaan leenahay containerkan saa arkayso yani containerkan saa arkayso waxaan leenahay directionkiisa layoutkiisa waxa ka dhigtaa kan ka dhig okay saa arkayso yani haddaan ka qaado waxaa arkaysa inay hoos dhinac yaalayaan balse waxaan leenahay saas ka dhig okay dhinac yaalaan markaa yani qaabkan ka dhig direction waxaa ka dhigtaa direction column ahaan ka dhig okay inta kadib waxa aan samaynaynaa size baan siinaynaa marka containerkan iyo containerkan labadan containerna waxay ku hoos jiraan containerkan weyn okay containerkan baan click siinaynaa kadib marka waxaan leenahay kan waxaa ka dhigtaa 55 ka dhig kanna waxaa ka dhigtaa 45 ka dhig baan leenahay okay saa arkayso kan ayaan ka weynaysiinay kan 55 baan ka dhignay kan 45 inta kadib waxa aan samaynaynaa
waxa aan sameynaynaa dabcan saa arkayso waxa aan soo qaadanaynaa text baan soo qaadanaynaa text inta ka textigan baan soo qaadanaynaa textiga halkan ayaan ku paste garaynaynaa okay textiga waxaad dareemaysaa inay colorkeeda yacni uu yahay blue inuu yahay insha Allah hadhowtii sidan ma isticmaali doono mar walba waxa aan samayn doonaa yacni waan qiyaasan doonaa wax walba hal mar baan samaysanaynaa oo markaa wax walba soo qaadno dhisaynkeeda ayay inoo yeelan doontaa oo tusaalahaan oo kale qofka markaa website-ka u sameynayso waxaa la doonayaa inaad si fudud ugu samaysay oo hal mar markuu yacni tusaalahaan oo kale uu doonayo farto dhan inuu hal mar wada bedelo hal meel intuu taabto loo yaqaano global site settingska globalka inuu farto hal mar iswada bedesho ee la doonayaa oo hal mar backgroundku iswada bedelo balse hadda yacni waxaan ku tusi doonaa qaabka loo soo qaadanayo oo keliya okay balse waan ku tusi doonaa qaabkaas oo hadhowtii ma soo wada qaadan doono ma dhihi doono farta waa intaa sizekeeda oo cabirkeeda waa intaa waa ka oo ku wareeraysaa sababtoo aad bay ugu wareeraysaa inaad farto dhan wax website-ku dhan hal mar wada bedesho waxaan ka dhigi doonaa wax fudud okay fartan oo kale ayaan marka hadda waxaan rabaa inaan qoraalkeeda soo qaato marka waxaan sameynayaa qoraalkan ayaan soo qaadanayaa kore ayaan soo qaadanayaa saa arkayso ma doonayo sababtoo in waqti naga lumo textiga qoraalkaas ayaan ka dhigtay soo kale styleka yani saa arkayso waxaan ka dhiganayaa left baan ka dhiganayaa dabcan hadda center ka dhigo dabcan saa arkayso left baan ka dhiganayaa stylekan tegaya marka fartan oo kale waxaa ka dhigi kartaa kalarka nooca rabta ka dhigan kartaa yani saa arkayso nooca farta kalarka balse anigu waxaan soo qaadanayaa farta waxaan soo qaadanayaa kalarkan baan soo qaadanayaa insha Allah okay inta kadib fartan ku laabanaya kadibna halkan ayaan ku baaskanaya balse hadii fartaas waa ka dhigan kartaa okay inta kadib waxaan sameynayaa typography-ga waxaan ka dhigayaa typography-gan hadhowtii marka yani naqshadan ma isticmaali doono naqshad kale ayaan kusoo shuban doonaa oo marka yani naqshadaas insha Allah telegramka qaybta failiska ayaan dhigi doonaa hal mar zip-ga ku wada jira sawirada ee wax walba aan isticmaalay okay inta kadib farta waxaan isticmaali doonaa hadda yani farta nooca arta isticmaali kartaa fartaas isticmaali kartaa balse hadda anigu waxaan isticmaali doonaa far loo yaqaan magaceeda opens ayaan isticmaali doonaa okay inta kadib oo kale size-ka waa weynayn kartaa aad baa kartaa balse size-ka waxaan ka dhigan doonaa 76 okay saa arkayso inta kadib yani farta weight-keeda ama culayskeeda waxaa ka dhigan kartaa far aad u waaweyn baa ka dhigan kartaa balse waxaan ka dhiganayaa 500 ayaan ka dhiganayaa okay saa arkayso balse waxaad dareemaysaa weli in markaa yani farta sizekeedana inuu isku dhow yahay halkan iyo halkan inuu isku dhow yahay marka waxaan sameynayaa waan kala fogeynayaa oo waxaan u dhaxaysanayaa line yani saa arkayso aan u dhaxaysanayaa line height ayaa loo yaqaanaa okay hoos baan u baxayaa saa arkayso yani hoos baan u baxayaa okay saa arkayso 70 saa arkayso line height-ka waa kala fogeyn kartaa saa arkayso waa kala fogeyn kartaa balse waxaan ka dhiganayaa aniga 85 ayaan ka dhiganayaa okay intaa kadib waxaan sameynayaa mar kale waxaan soo qaadanayaa qoraal ayaan soo qaadanayaa qoraal yar ayaan soo qaadanaya marka hore header bay markan qoraal baan soo qaadanaya okay qoraalkan marka yani waxaan sameynayaa qoraalkayga ayaan soo qaadanaya aniga okay qoraalkaas aan soo qaadanaya kadibna halkan ayaan ku paste garaysanaya inta kadib waxaan sameynayaa style baan tagayaa style markaan tago farta left baan ka dhiganayaa saa arkayso farta yani qoraalkan inta kadib yani saa arkayso farta nooca arta ka dhigan kartaa blue oo kale ka dhigi kartaa yani farta yar arta saa arkayso blue kala ka dhigi kartaa balse anigu waxaan rabaa fartan ayaan isticmaalayaa 242527 ayaan ka dhiganayaa oo markaa waxaan ka dhigayaa khafiif ayaan ka dhigayaa fartaas okay saa arkayso fartaas ayaan ka qaatay 242527 saa arkayso fartaas ayaan qaatay bal kadibna yani halkan ayaan jiidayaa saa arkayso wax yar khafiif baan ka dhiganayaa okay inta kadib typography-ga farta yani size-keeda iyo markaa yani naqshadeeda enter baan ka dhiganayaa farta naqshadeeda saa arkayso naqshadeeda soo kale halkan waxaan ka dhiganayaa 1817 beenahaas ka dhiganayaa farta inta kadib 400 weight-ka culayska u daayay hadda ka dhigto arkaysa inay aad u weynaanayso hadda kuwan ka dhigto aad u wanaagsan balse ana wax ka dhiganayaa 400 ayaan ka dhiganayaa okay inta kadib saaxiibayaal hadda waxaan soo qaadanayaa container ayaan soo qaadanayaa containerkan aan soo qaadan doono wuxuu ku hoos jiraa containerkan ayuu ku hoos jiraa okay containerkan hoos baan dhigayaa containerka halkaas hoose ayaan dhigayaa okay containerka marka waxaan soo qaadanayaa hadda bottom baan soo qaadanayaa containerkan saa arkayso bottom baan soo qaadanayaa oo containerka yarka aan soo qaatay ayaan dhex gelinayaa okay saa arkayso inta kadib ayaa xarigtaa left dhig baan leeyahay saa arkayso stylekiisaan tegayaa stylekiisa waxaa arkaysaa yani horta qoraalka aan ka bedelo klikiya ayaa qoran qoraalkan ka bedelayaa qoraal markaas ayaan soo qaadanaya qoraalkan baan soo qaadanaya saa arkayso okay qoraalka markaas soo qaatay saaxiib saa arkayso waxaan leeyahay qoraalkaas waan ka dhigay inta kadib style baan ku dhufanayaa style waxaa arkaysaa fartu inay yani farta yani saas ay tahay nooca arta farta ka dhigan kartaa bas oo soo laabanaya farta typography-ga ayaan tegaynaa typography-ga waxaan ka dhiganayaa enter ayaan ka dhiganayaa
enter baan ka dhiganayaa saa arkaysa waxaan joogaa typographigiisa enter baan ka dhigtay farto kale waxaan ka dhiganayaa 18 baan ka dhiganayaa inta kadib saa arkayso farto 500 weeyaan kale waxa ka dhigan kartaa 600 baa ka dhigan kartaa okay inta kadib yani waxaan sameynayaa hadda waxaan sameynayaa colorkiisa ayaan tagayaa colorka nooca aad ka dhigan kartaa noocaas aad ka dhigan kartaa saa arkayso noocaas aad ka dhigan kartaa noocaas aad ka dhigan kartaa bluega aad ka dhigan kartaa bluegaas aad ka dhigan kartaa gareynaya okay saa arkayso inta kadib waxa rabaa markii yani button kala dul tago inuu ka dhigo yani color kale oo qurux madow oo kale inuu ka dhigo marka hover baan tagayaa hover baa la dhahaa hover baan tagayaa kadibna waxa ka dhiganayaa yani waxa ka dhiganayaa 242527 marka fartii aan yani colorkii in badan fartaan u isticmaalay ama website-kan u isticmaalay okay aan tagayaa hover halkii ku qoran tahay kadibna color baa tagaysaa color kadibna halkaas aad klik siinaysaa marka eeg la dul tago uu isbedelay okay inta kadib waxaan sameynayaa yani waxaan sameynayaa rounded baan ka dhigayaa geesaha baan kasoo wareejinayaa tusaale kale wax ka dhigi kartaa oo kale dhinac walba wax ka dhigi kartaa waxa ka dhigi kartaa 30 oo kale ka dhigi kartaa aad yani hal dhinac baan soo wareejiyay all waxaan ka wada dhigay 30 saa arkayso dhinac walba 30 okay saa arkayso 20 oo kale balse anigu waxa ka dhigi doonaa 9 oo kale aan ka dhigaya aad xoogaa xaraa geesaha xir inaan ka soo sidoo kale يعني بادن default yaa siiyay marka badin aniga aan siiyay ayaan rabaa oo kor inuu dhinaca badin waa soo aragnay marka rabtay inaad yani dhinacyada ay ka dogtid isla marka yani shape-kaas gudihiisa okay marka waxaan sameynayaa halkan badin 0 aan ka wada dhigaya marka waxaan rabaa dhinac walba marka hore wax ka dhigaya 16 baa ka dhigaya hal mar dhinac walba 16 baa ka dhigaya balse waxaan rabaa right-ka kale dhinacan inaan ka dhigo 24 inaan u dheereeyaa rabaa soo kale leftigana aan u dheereeyo 24 soo arkayso hadda waa dhisan karaysan inta kadib saaxiibaal waxaan sameynaynaa waxaan soo qaadanayaa qoraal baan soo qaadanayaa qoraalkan ayaan soo qaadanayaa kadibna qoraalkii waxaan dhexgeliyay containerkan yarka ayaan dhexgeliyay soo arkayso qoraalkan marka yani waxaan u bixin doonaa yani textigan waxaan ka dhigi doonaa 7 December soo arkayso qoraalkaas ka dhigi doonaa soo copy garaysanaya okay saa arkayso qoraalka dul tagaysaa kadibna qoraalka ayaa markaa baasti garanaysaa okay inta markaa samayso qoraalka stylekiisa tagaysaa style baa tagaysaa kadibna qoraalka inta kadib textigiisa colorkiisa aad markaa yani waxa sameynaysaa textiga colorka qoraalka waxaan ka dhigayaa tusaale kale 242527 ayaan ka dhigayaa textiga colorkiisa saa arkayso qoraalka nooca jeceshaa ka dhigan kartaa saa buu noqdaa macsan waxaan ka dhigayaa yani saa arkayso madow ayaan ka dhigtaa inta kadib waxaan sameynayaa typographigiisa ayaan tagayaa kadibna typography waxaan ka dhiganayaa enter ayaan ka dhiganayaa enter baan ka dhiganayaa saa arkayso inta kadib yani waxaan sameynayaa farto kale waxaan ka dhiganayaa 16 baan ka dhigayaa saa arkayso inta kadib waxaan leeyahay waxa ka dhigtaa 600 ka dhig saa arkayso kale marka waxaad dareemaysaa yani inay is-hoos yeelaan bal waxaan rabaa inaan dhinac dhiga ayaan rabaa marka containerkan yarka ayaad klik siinaysaa markaa klik siisid yani waxa aad leedahay sida hore usoo qaadanay direction column yani row ahaan horizontal ahaan ka dhigan leedahay saa arkayso row ahaan horizontal ahaan saa arkayso soo kale waxaan leenahay inaan qaybtan dhankan usoo durjino marka waxaan leenahay align item center marka centerka gey saa arkayso halkan waxaa soo durjin kartaa saa arkayso dhexda markaa soo kale waxaan rabnaa gaabka isku jiraan labadan 20 xogaa yani isku yar dhow yihiin marka meel kale ma joogna halkan aan joognaa ogow yaa halkan aan joognaa marka gaabka isku jira waxaan rabnaa 30 isku jiraan 20 default minus 30 dheerna isku jiraan saa arkayso 30 ay markaa isku jiraan okay styleka kale aad yani tan kale bold waa ka sii dhigi kartaa yani saa arkayso aad bold yani content-iga adiga jooga okay inta kadib waxaan soo qaadan doonaa container kale ayaan markaa soo qaadan doonaa marka containerka saa soo qaadano halkan baa mar oo hoos dhigaysa containerkii okay containerkan waxaan soo gashan doonaa image ayaan soo gashan doonaa image-ka sida loo soo geliyo website-ka saas soo gelinaysaa kadibna hal mar baad image-kii dooranaysaa kadibna image kadibna waxyaalo dhow waxaan ku dhigi doonaa yani telegramka gaar ahaan qaybta description-ka iminka youtube-ka aad daawanayso intaa kadib saa arkayso dhexda ayuu si toosan naga aadaa waxaan tegaynaa containerka waxaa soo baratay in row horizontal haddii la dhaho dhankan uu soo aaday okay soo kale marka aan samayn doonaa waxaan soo gashan doonaa text qoraal baa soo gashan doonaa qoraalkan aan soo gashanaynaa markan halkan haddaan hoos dhigo ma aaday marka waxaa la rabaa marka uu ka baxayaa saa arkayso containerkii yani kusoo yani size-ka yani madowgan wareegsan saa arkayso hoos buu ka gelaya marka ma doonayna halkaa dhignaarna maadaama aan niri row yani aan niri sababtoo ah waxaan niri dabcan halkan saa arkayso yani marka haddaan aanan ka qaadno waxaa arkaysa inuu hoos dhigayaan marka saas ayaan niri saa arkayso fartan ayaan yani
waxaan rabnaa farta qoraalkaas inaan markaa iska tirno oo qoraalkan ku qoranno soo arkayso qoraalkan ayaan markaa ku qoranayna intaa kadib qoraalkan ayaa markaa yani qoraalka hore ayaan bold ka dhigayaa soo arkayso stylekiisa ayaan tegayaa kadibna soo arkayso colorkan ayaan wax ka dhiganayaa colorkan ayaan ka dhiganayaa 242527 ayaan ka dhiganayaa okay soo arkayso fartaas hadda yani soo arkayso waxaan ka dhiganayaa 242527 intaa kadib typographiga aan imaanayaa waxaan leeyahay waxaa ka dhigtaa halkan waxaa ka dhigtaa farta horta robot iga tahay enter iga dhig sidoo kale farta size-keedana waxaa ka dhigtaa 18 ka dhig soo arkayso sidoo kale markaa yani kala durjisaa yani containerka tag baa leedahay containerka tagtidna waxaa rabtaa yani align item centerka ii dhig soo arkayso centerka dhig soo arkayso sidoo kale waxaan sameynaynaa gaabka isku jiraan labadan waa 20 baan leenahay 30 ka dhig 30 xoogaa kala durki okay saaxiibayaal sida arkaysaan yani hadda waxaan doonayaa website-ka marka aan sameynayo waxa weeyaan yasir.wp-.com yani dabcan sida arkayso hadda yani intan waa dhamaysanay balse waxaa arkaysaa marmarka qaarkood yani in markaa domainka gelisid aad gelisid yani domainka sidaas u gelisid oo kale tusaalaha kale inuusan kusoo saarin design-ka aad design-kaas marka waxaan tegaynaa dashboard baan tegaynaa si markaa kusoo saaro kadibna waxaan tegaynaa halkan ay ku qoran tahay settings baa tegaynaa kadibna reading halkay ku qoran tahay ku dhufanaysaa intaa kadib markaa reading ku dhufanaysaa static baa tegaysaa kadibna halkan waxaa ka dhiganaysaa pro website ayaa ka dhiganaysaa static baa doonaysaa pro website kadibna yani waxaa leedahay save changes ay leedahay kadib haddaa website-kii hadda booqatid saa arkayso yani design-kii isku bedelay marka saas ayaa samaynaysaa okay marka haddaan usoo laabano يعني qaybtan waa dhamaystirnay balse waxaan soo qaadan doonaa qaybtan kale ayaan markaa samayn doonaa okay saaxiibayaal wax yar haddaan markaa yani idin fahansiiyo qaybtan aan dhamaynay horta marka koowaad waxaa laga yaabaa inaan ku wareertay marka waxaan soo furaynaa wax loo yaqaano navigator baan soo furanaynaa okay navigatorka markaan soo furanay haddaan wada xirno navigatorka dabcan aan wada xiro dabcan korna aan u baxo marka koowaad waxaan sameeyey laba containerkan iyo waxaan sameeyey containerkan labadan container baan sameeyey okay containerkan hadda aan joogo waa eber oo markaa weli waxa ma soo gelin waa iska xiraya isaga sida arkayso balse containerkan ayaan sameeyey okay containerkan markaan sameeyey waxa aan soo geliyey hidden text ayaan soo geliyey containerkan yarka ah oo kale waxaan soo geliyey text sidoo kale waxaan soo geliyey text editor oo qoraal yar ah sidoo kale waxaan soo geliyey container kale oo markaa containerkan yarka ah ku hoos jira containerkan yarkaana wuxuu kasoo farcamay kan يعني wax kale ma dhihi karo waxaan dhihi karaa yani haddaan yani tusaale yar aan siiyo oo aan iska wada xiro dabcan aan wada kaligareeyo waxaan dhihi karaa yani containerkan weyn waa containerkaas sidoo kale wuxuu dhalay labadan container ayuu dhalay labadan container waa containerna waa midkan eberka ah marka kii yaraa ayaa markaa yani waxa aan soo geliyey text hidden ayaan soo geliyey qoraalkan iyo textigan iyo qoraalka yarka sidoo kale markaa waxa aan soo geliyey containerkan yarka ah inner container kale oo kusii hoos jira sidoo kale mar kale ayaa waxaan soo geliyey isla containerkan leftiga soo xiga waxaan soo geliyey containerkan ayaan soo geliyey dabcan okay si marka aad u fahantaan waxa aan leeyahay oo kale waxaan leeyahay haddaan xiro oo furo marka yani kan waxaan u bixinayaa oo kale haddaan edit gareeyo waxaan u bixinayaa lefty container oo containerka leftiga xiga kanna marka yani waxaan u bixinayaa sa arkayso right container oo markaa containerkan kale oo dhanka midigta xiga right okay sa arkayso marka waxaan sameynaynaa lefty containerkan weyn ayaa marka hore dhisnay oo soo qaadanay laba structure oo laba container iskugu jira lefty iyo right bay kala ahaayeen lefty baan hadda ka shaqaynay lefty waxaan soo gelinay hiddenka textigaas iyo text editorkaas ayaan soo gelinay sidoo kale markaan soo gelinay haddana waxa aan soo gelinay inner container markaa containerkan kusii dhex jira ayaan soo gelinay okay inner container ayaa loo yaqaana waa containerkan lefty kusii dhex jira intaa kadib haddana waxaan soo gelinay inner container kale oo markaa kan ah ayaan soo gelinay inner container kale oo markaa kan ah ayaan markaa soo gelinay okay saa arkayso marka hadda saas ayaan ku dhamaynaa qaybtaas marka hadda waxaan bilaabaynaa qaybtan kale ayaan bilaabi doonaa insha Allah okay marka sida marka yani qaybtan kale aan u naqshadeeyo waxa aan sameynayaa marka koowaad waxa aan soo gelinayaa image baan soo gelinayaa saa arkayso image baan soo gelinayaa saddex image baan soo gelinayaa haddana mar kale waxaan soo gelinayaa image kale ayaan soo gelinayaa dabcan okay haddana mar kale waxaan saddex image baan soo gelinayaa haddana mar kale waxaan soo gelinayaa image kale ayaan hoos dhigayaa
okay image kan koobaad horta marka koobaad fartan ma isticmaalo doono fartan waa bedelo farta qurux badan ayaan isticmaali doonaa insha Allah marka waxaan rabaa inaan bedelo image kan ayaan rabaa inaan bedelo image baan soo qaadanayaa marka upload baan dhahayaa select file baan doonaa okay inta kadib yani sa arkayso yani website kana dhisan horta waa website adigu iska website practical adiga website hadaad baratid hadaad fahamtid nooc walba dhis doontaa balse website-ka waxaan ku fahansiinayaa containers sections iyo padding iyo margin ka waxba soo shaqeyn adiga markaa naqshad waa la imaan doontaa okay sawirkii waa soo gelinay okay inta kadib dana sawir kale aan soo gashanaynaa saa arkayso upload baan dhahaynaa laba sawir baan hadda soo gashay labadaas sawir baa ii haray marka hadda waxaan soo gashanayaa kan ayaan soo gashanayaa sawirkaa gelinayaa okay sidoo kale mar kale ayaan marka waxaan soo gashan doonaa sawirkii saddexaad baan soo gashan doonaa waa kana okay saa arkaysaan waxaan rabnaa muhiimaddan waxa weeyaan sawirkan inaan halkaa dhigno oo ka dhigno ninkan iyo ninkan inay isla hadlayaan yani design ahaan ama qurux ahaan marka waxaan sameynaa hal mar baan kali garaynaynaa waxaan tegaynaa style halkay ku qoran tahay kadibna waxaan leenahay halkan waxaan ka dhiganaynaa pixel baan ka dhiganaynaa kadibna waxaan ku qoraynaa 265 baan ka dhigaynaa dabcan okay kadibna advanced baan tegaynaa hoos baan u baxaynaa meesha ku qoran tahay position ayaa markaa wax ka dhigaysa absolute okay saa arkayso sawirkii markaa yani haddaan kor u baxno sawirkii yani saas ay noqdo intaa kadib yani halkan wuxuu nooga joogaa horizontal orientationka left baan ka dhigaynaa intaa kadib markaan left ka dhigna waxaan ka dhigaynaa yani saa arkayso hoos baad u bixin kartaa dhankaas saa arkayso number baan siinaynaa marka saa arkayso number baan dhanka maadaama left aan inoo dhig number baan siinaa waxaan siinaynaa -62 baan siinaynaa dabcan saa arkayso halkaas ahaan cabiraan sidoo kale waxaan leenahay vertical ahaanna hoos haddaan u baxno vertical ahaanna waxaa noo tagtaa yani cabir macnaha yani waxaan leenahay hoos oo kale u durug baan leenahay saa arkayso wale balse number baan siinayaa qiyaasan waxaan leenahay waxaa noo durugtaa 85 meelahaas okay kii kale aan soo qaadanayaa marka sawir kale marka sawirkan muhiimaddan waxay inaan halkan dhiga isagana marka waxaan sameynayaa style baan tegayaa sidun baan sameynayaa pixel baan tegayaa kadibna waxaan ka dhigayaa pixel baan ka dhigayaa 265 baan leeyahay kadibna advanced baan tegayaa kadibna hoos baan u baxayaa okay sawirka yani haddaan tago hoos haddaan kor haddaan u baxo yani okay muuskan mudaysa inuusan awaas iga yahay advanced baan tegayaa kadibna waxaan tegayaa position kadibna absolute baan leeyahay okay kor baan u baxaynaa intaa kadib waxa aan leeyahay saa arkayso hadda isagu inoo joogaa dhinaca arnay yani left ma rabno markan right kaan rabnaa and left gaan rabnaa right kama doonayno horizontal orientationka intaa kadib saa arkayso yani dhankan size ahaan nooce dhankee buu kaaga fariisanaya okay waa saas soo durjin kartaa saas oo dhigi kartaa bas ani waxaan doonayaa inaan cabir ahaan ka dhigto -40 oo kale inaan ka dhigata -40 oo kale ayaan rabaa inaan ka dhigto ku fariisto sidoo kale hoos inuu xoogaa igu soo durkaa rabaa oo yani saan in noqdo saa arkayso balse yani ani qiyaas ahaan waxaan ka dhiganayaa 260 ayaan ka dhiganayaa saa arkaysan saaxiibayaal qaybtan waa dhamaynay qaybtii waxaan bilaabi doonaa qaybta kale ayaan bilaabi doonaa qaybta kalena aad bay u fududaa insha Allah yani hadda qaybtan waa qaybtii ugu horeysay yani si clear ah ayaan u samaynay balse qaybta kalena insha Allah waan bilaabi doonaa oo marka hadda waxaan ku tusin doonaa ma doonayno mar walba inaan fontida saar ka dhig size-ka intaa ka dhig image-ka saas ka dhig header-ka textigan button-ka color-kaas yani ka dhig ma doonayno waxaan rabnaa mar walba aan button soo galino website-ka design-ka ku wadana waxa weeyaan 3 color weeyaan 3da color inaan wax walba markaa button soo qaadano inuu color-kaas inooga dhigo yani orange-ga ah markii aan soo qaadano buttonka yani textigiisa ku jira inuu numberkaas size-ka nooga dhigo soo kale mar walba aan soo qaadano hidden yani ama textigan weyn inuu textigaas automatic uga dhigo mar walba aan soo qaadano fontidan inuu fontida 16 ka dhigo ama 17 waxaan doonaynaa يعني sidaas ayaan doonaynaa mar walba color aan soo qaadano inuu markaa yani isagu is sameeyo sababtoo ah professional ma hadhowti xitaa awood waxa weeyaan leeyahay hal mar baa waxaad tegaysaa meeshan set settings markaa colorka hal mar ayaad website-ka ka bedeli kartaa hal mar ayaad text-ka ka bedeli kartaa maalin walba nooc baa ka dhiganaysaa oo website-kaaga hal maamul buu yeelanayaa mal nidaam laakiin dhibaato weyn aad tiraahdo mar walba xataa yani qofka website-ka u sameynaysa muhiim ma xitaa adiga muhiimka ma waxay noqonaysaa kulli inaad xabad u bedeshid laakiin haddaad hal maamul u samaysid yani website-kaaga كل هالمرة يعني مانوال بدليسة مركز هذا ساس يعني سمين دونا إن شاء الله هذا يعني بدل جريني الناس سأركزه كدنا سأركزه فيو عندهنا سأركزه وبسط كنا سأركزه فونتين يوايس كبدل دونا إن شاء الله horta waxaa muhiim ah markii website-ka aad samaynaysid sidaan idiin sheegay ama design garaysid ama company design garaysid muhiim ah inaad mar walba aad soo kala gelisid buttonka يعني size-kiisa sidoo kale background-kiisa yani farta hidden-ka yani fartan weyn oo kale tusaalaan oo kale ama farartan oo kale ama fontiyada oo kale tusaalaan oo kale size-keeda mar walba inaad si gaar ah u soo gelisid muhiim ah tusaalaan oo kale waxay rabaan ku tusinaya hadda yani
waxaan dooranay direction column inta kadib waxaan soo qaadanaya yani text oo soo qaadanay waxaa arkaysaa textigan yani inaysan ahayn textiga aan ugu talagalnay backgroundka marka yani ama website-ka aan ku sameynayno yani colorka aan ku sameynayno iyo textigan iyo yani fartan marka yani say tahay yani designkeeda inaysan ahayn marka farta aan website-keena aan ku sameyn doono inaysan ahayn marka waxaan rabnaa inaan hal mar soo wada gelino farta yani aan ku sameyn doono naqshadeeda iyo sizekeeda iyo backgroundkeena markaan hal mar soo qaadno tusaalahan oo kale hadda markaan hal mar saan usoo qaadno kale text kale soo qaad saa usoo qaad inay noo noqoto si automatic ah hadhowtiina meel aan ka wada maamulno ay jirto hal mar haddaan intaa ka bedelno website-ka dhan uu isbedelayo okay tusaalahan oo kale button baad doonaysaa inaad soo qaadatid saas oo kale usoo qaanaysa halkaa dhexdeeda dhig saas u noqdo kalarkaasu iga yeeshay haddadaan wax yar kan iska dhimo saa arkayso yani buttonkii saas iga noqdo tusaalahan kale hadda waxaan soo qaadanayaa text oo kale qoraal far yar aan iska soo qaadanaya saa arkayso fartii yareena madowgaas iga noqotay marka ma doonaya sidan aniga waxaan sameynayaa marka waxa aan sameynayaa wax loo yaqaano horta far baan soo gashanayaa marka koowaad fonti ayaan soo gashanayaa update baan dhahayaa saa arkaysaan intaa kadib waan laabanayaa saa arkaysaan waxaan ku laabanayaa dashboardka ayaan ku laabanayaa intaa kadib waxaan tegayaa halkan ku qoran tahay plugin ayaan tegayaa add new plugin ayaan ku dhufanayaa intaa kadib waxa aan sameynaya halkan waxaan ka raadinayaa halkay qoran tahay custom fonti ayaan soo gashanayaa okay install baan dhahanayaa dabcan saaxiib saa arkaysaan okay install baan dhahanayaa kadibna activate baan dhahanayaa okay intaa kadib saa arkaysaan activate baan dhahday intaa kadib waxaa ku dhufanaysaa settingska plugin baa tegaysaa custom fonti intaa kadib add fonti baa dhahayaa kadibna magaca waa u bixinaya kalash display advanced baad ku dhufanaysaa waxaa ka dhiganaysaa Arial oo kale okay intaa kadib waxaa leedahay hoos baad u baxaysaa 400 bay ka tahay 500 oo kale ka dhigo intaa kadib yani waxaa leedahay oo kale soo gali choose file baad dooranaysaa marka waxaa soo gashanaysaa fartii ayaad markaa soo gashanaysaa halkan baan ku dhufanaynaa waxaan leenahay medium notes aan leenahay medium waatana kalash display kadibna fontis kadibna web kadibna fontis kadibna saa arkayso halkan aan ku dhufanaynaa medium ayaan dhahaynaa intaa kadib fartii aan markaa soo gashanaynaa fartu meelahan ayay kala gelaysaa qaybteeda mediumka ayaan markaa soo gashanaynaa okay waatana medium 2 soo kale medium 2 na waatana kalash EOT weeye iyo wolf okay soo kale kalash regular weight maaha intaan dirnay kor baan u soconaynaa laba kale ayaa inoo dhiman arkayso medium kale waatana oo magaceeda kalash medium soo kale medium wolf 2 na waatana intaa kadib open baan dhahanaynaa saa arkaysaan way noo soo gashay TTF iyo wolf 2 iyo EOT iyo wolf kaliya inta kadib upload baa lahanaynaa waxaan soo gashanaynaa OOTF mid kale oo lagu yaqaan OOTF ayaan soo gashanaynaa back baan dhahaynaa xeer fano kadibna fontis kadibna OTF marka hore waxaan ku dhufanay web OTF baan doonaynaa kadibna mediumteeda ayaan soo qaadaynaa saa arkayso kalash okay inta kadib waxaan leenahay hal mar ayaan klikinaynaa hal mar ayaan kala galanaa saa arkayso hal mar ayaan use font dhahaynaa okay hal xabaan soo gashanay saa arkayso okay inta kadib add font ayaa dhahaysaa tan kale add font soo gali okay waxaan leenahay choose file tii labaad soo gali use font dheh okay hoos u bax add font kala dheh tii saddexaad baan soo gelinaa markan choose waa kana 3 kadibna waxaan sameynaynaa add font variation tii afraad baan soo gelinaynaa use font baan dhahaynaa okay intaa kadib add font variation ayaan dhahaynaa mar kale hoos baan u baxaynaa choose file ayaan dhahaynaa kadibna waa taasa kalash intee soo gashanay marka waxaan soo gashanay 1 2 3 4 5 inoo dhiman kadibna save font baan dhahaynaa okay saa arkayso fartii way noo save garowday fartii waa tanaa noocyadeeda inta kadib waxaan sameynaa saaxiibayaal waxaan tegaynaa pages markaan tagno kadibna edit elementor baan dhahaynaa inta kadib waxaan sameynaa farta tan oo kale yani select file baan dhahaysaa kadibna si aad u bedeshid typograph baad dooranaysaa saa arkayso si automatic ah default oo kale sidan ay markaa yani saa arkayso fartii waa tanaa enter oo kale yani ay gelinaysaa farta halkan laga bedela markaas balse anu waxaan dooranayaa fartan loo yaqaano kalash display saa arkayso hal mar ay isbedeshay saa arkayso qurux badan inay noqoto marka waxaan doonayaa marka kuwan inay isbedelaan baan doonayaa kuwan oo kale yani saa arkayso marka hore xikaayeen ani waa bedbedelay laakiin marka hore waxay xikaayeen styleka yani farta waxay ka tahay saas amal dhigata enter oo kale ka tahay okay enter oo kale saas oo kale enter oo kale ay ka tahay balse aniga waa bedbedelay marka yani okay enter oo kale ay ka tahay okay marka waxaad sameynaysaa yani waxaad tegaysaa halkan ay qoran tahay saddexda tig baad tegaysaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa halka qoran tahay site settings baad ku dhufanaysaa
size settings marka ku dhufatid waxaad tagaysaa halkan ay qoran tahay global colors horta kalarada inaan bedelnaa rabnaa colorkan oo kale waxaan sameynaynaa colorkan primary aan ka bilaabayna colorka primary waxaan ka dhigaynaa yani colorka primaryga dan kalarada qaybta kalarada aan aado okay waxaan ka dhigayaa 242527 aan ka dhigayaa saarkayso kalarka harta ka dhigaysaa saarkayso halkan way isbedelaysaa hal mar hadhowti markaan text soo qaato kalarka markaa website-kayga aan ku waday 242527 ku ah okay soo kale waxaan secondary iska diinina text aan soo qaadanaya saarkayso waxaan ka dhigayaa isagana 242527 balse xoogaa waxaan ka dhigayaa saarkayso isbedelaysaa xoogaa waxaan ka dhigayaa halka meelaha okay intaa kadib waxaan soo qaadanaya accent color soo kale accent color waxa weeyaan buttonka kale backgroundkiisa iyo wax noocaas ah okay buttonka waxaan ka dhiganayaa saarkayso F57950 ayaan ka dhiganayaa okay saarkayso haddaan nooca ka dhigo buttonku isbedelaya hal mar saarkayso marka waxaan ka dhiganayaa saasaan ka dhiganayaa saarkayso intaa kadib waxaan sameynayaa custom ayaan soo qaadanaya of weight loo yaqaano kanada horey baan usoo qaatay yani saarkayso fartan horey baan usoo qaatay tan laftirkiisa ayaan ka dhiganayaa saarkayso marka waxaan sameynaynaa delete garanayaa saarkayso delete baan dhahayaa balse hadda marka ayaan color soo qaadanay add color baan dhahayaa saarkayso qorayaa of weight ayaan qorayaa of weight ayaan qorayaa inta kadib halkan aan click siinayaa kadib waxaan leeyahay halkaas farta ku qor kadibna saarkayso okay marka maxaan sameynayaa marka waa ka baxayaa save baan dhahayaa saarkayso save ayaan dhahayaa okay waxaan imaanayaa hadda global fonts wax loo yaqaano yani fontska ayaan imaanayaa inta kadib primary waxaan ka dhigayaa clash display ayaan ka dhigayaa farta saarkayso clash display ayaan ka dhigayaa marka hore farta waxay ahayd yani google font far kale qaab danbeegeed marka waxaan ka dhiganayaa clash display fartii aan soo doortay ayaan ka dhiganayaa okay inta kadib fartan oo kale yani waxaan ka dhiganayaa 48 size-keeda ka dhigo okay yani saarkayso fartan medium-keeda yani 500 ayaan ka dhigtay okay saarkayso yani waxaan sameynayaa oo kale intaan ku daynayaa primary soo kale secondary waxaan ka dhigayaa oo kale anigu waan sii habaystay enter baan ka dhiganayaa secondary enter baan ka dhiganayaa saarkayso kan waxaan ka dhiganayaa size-ka fartan ayaa yareyn kartaa saarkayso waxaan ka dhiganayaa aniga 118 ayaan ka dhiganayaa tan waxaan ka dhiganayaa yanaas 100 ayaan ka dhiganayaa okay saarkayso inta kadib waxa aan sameynayaa text oo kale wax ka dhiganayaa farta enter baan ka dhiganayaa saarkayso inta kadib farta waxaan ka dhiganayaa size-keeda 16 baan dooranayaa okay saarkayso yani 500 waa ka dhigtay yani saarkayso okay inta kadib waxa aan sameynayaa accent font enter baan ka dhigtay saarkayso enter baan ka dhigtay inta kadib saarkayso 18 baan ka dhigay waa buttonka weeyaan farta buttonka weeyaan saarkayso inta kadib waxaan ka dhigtay ama yani waxa iga dhahdaa 16 iga dhig 17 iga dhig 17 inta kadib update baan dhahanayaa fartiina waan hagaagsan oo hadhowtu waxaan rabaa mar walba aan wax soo geliyo inay waxa yani aysan isbedelin saarkayso waan soo hagaajisnay global colors iyo global fonts typography oo kale ayaa maanaysa typography markaad timaadid waxa aad sameynaysaa halkan text color ayaan ka dhiganayaa saarkaysaan halkan waxa ka dhiganayaa text ayaan ka dhiganayaa balse aad refresh garay inta kadib hoos baan u baxayaa saarkayso halkan waxay ka tahay yani 0 ay tahay inta isku jiraan cabir yani inta isku jiraan textiga oo kada saa tiraahdo kale yani wax isku jiraan wax fara badan isku jiraan marka wax ka dhigataa 0 ka dhigo okay saarkayso hoos oo kale hadaad u baxid 2 oo kale waxaan ka dhiganaynaa 2 oo kale yani waxaan ka dhiganaynaa saarkayso primary aan ka dhiganaynaa kadibna update baan dhaanaynaa balse waxa jirto kale yani qayb kale dad yani back dhahayd oo hoos baxid halkaas lead halkan ku arkaysaa leadka yani saarkayso yani halkan waxa weeye si default waxa u tahay 1140 ay u tahay saarkayso okay yani geesaha inaad ka durugtid weeyaan okay inta ka saarkaysa halkan oo kale yani padding ay wadataa marka hore balse waxaad ka dhigaysaa 0 padding ayaad ka dhigaysaa inta kadibna gapskaas iska daynaysaa inay si automatic gap isku jirsadaan mar walba marka container aad soo gelisid kadibna update baan dhahanaynaa okay marka hadda ay shaqadu noo bilaabanaysaa marka waxaan sameynaynaa back baan dhahanaynaa iska kansanaynaa kan sidoo kale waxa jirta yani cilada koosto kale halka marka click siisid hoos baad u baxaysaa dabcan waxa arkaysaa additional inay yani hidden ayaan meesha aniga tahay default ay ka tahay oo marka adiga size ku siinayso yani size halkan banaan marka halka waxa ka dhigataa hidden ka dhigo saarkayso hidden ka dhigo si marka yani ku siiso sidoo kale waxa aad samaysaa oo kale hadaad yani aad samaysid halkan marka la taabatid kadibna aad taabatid user preferences meesha qoran tahay saarkayso tan yani saarkayso intii ku jirsanaysa weeyaan tan shaqada laga wado marka 300 ayaad ka dhiganaysaa inta kadib saarkayso halkan oo kale halkan editing handles yani marka yani aad dirtid inaad wax ku bijiraysid oo kale ay ku faa'iideynaysaa faa'iido ku taas saarkayso oo ka
arkayso faa'iido ku tahay update baan hanaynaa hadda marka website ka qaybtiisii kale ayaan bilaabaynaa marka waan iska saaraynaa waxaan